عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. Ibn Umar, may Allah be pleased with them, reported: the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, the structure of Islam is built on 5 pillars: testification of La ilaha illallah, none has the right to be worshipped but Allah, that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his slave and messenger, the establishment of salat, the payment of zakat, the pilgrimage to the house of Allah, Kaaba, and fasting during the month of Ramadan. Narrated by Al-Bukhari and Muslim. Cabdullaahi ibn Cumar, Allah raalli ah ka noqdo labadood, wuxuu yidhi: waxaan maqlay nebiga naxariis alla korkiisa ahaatee oo dhahaya: Islaamku wuxuu ku dhisan yahay 5: shahaadada mise markhaati qaadka in alla mooye inuu ilaah kale jirin, iyo inuu Muxamed yahay addoon iyo rasuulkii Allah, iyo tukashada salaada, iyo dhiibidda zakaadka, iyo xajga guriga Allah, iyo soomka Ramadaanka. xadiidkan waxaa wariyey Bukhaari iyo Muslim.